kulankan aan isugu nimid caawa hotel Maka ee magaalada Kismaayo waa kulan ay ka soo qayb galeen ama ay soo agaasimeen shaqaalaha wasaaradda haweenka arrimaha qoyska iyo xuquuqul insaanka dowlad goboleedka Jubbaland wasaaradda haweenku waxay lahayd laba agaasime guud walaashan Zainab ayaa wasaaradda waxa lagu wareejiyay deegaanka iyo dalxiiska sida la ajrigeed waxaan u sameynay walaasheen inaan u qabano xaflad yar si maxaan ku dhadaa ay shaqadeedii berito la ugu wareejin insha Allah taala sida la ajrigeed anagoo ku faraxsan kulankan quruxda badan ee aad iyo aad u qiimo badan haddana waxaan dareemaynaa inay walaashan Zainab ay firaaqi ay goldoleelo noo jirto si kastaba ha ahaatee kulankaas waa kulan noocaas oo kala idinka Ilaahay mas'uuliyiinta ka soo qayb galay madaxa saxafiyiinta Jubbaland ee mudana waxar iyo afayeenka Cabdifatax Daacas iyo agaasimaha guud wasaaradda haweenka iyo dhamaan shaqaalaha wasaaradda haweenka aad baan idinku wada mahadcelinaynaa aan siiyo kelmado kooban waxaan leenahay soo dhawow gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa insha Allah waan kula shaqeyn doonaa hadii aan af saxafiyiinta Jubbaland anigoo afkooda ku hadlaya dad u mahadsantahay anigu laba title waan hayaa title urur dhalinyaro madax banaan oo Jubbaland Youth League la dhaho JYL baan afayeen wahay isla ururkaas baan waxaan uga tirsanahay Junsa haddana xil baan ka hayaa oo isla afayeenkaas marka labada title waan ku wada shaqeyn doonaa insha Allah haddaan dhalinyaro ahay iyo haddaan civil society ama arrimaha bulshada aan ka shaqeynayo Zainab maanta waan ku soo gootinaynaa laakiin waxaan kugu soo gootinaynaa aan kugu soo dhaweynaynaa wasaaradda cusub waxaana aad iyo aad kaaga mahadcelinaynaa sidii fiicneed aan nala soo shaqeysay dan anigoo ku hadlaya afka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka marka waxaan rajaynaynaa in waxyaalo badan ka bedeli doontid sida diiranaanta lahayd ugu shaqeynaysay bulshada Jubbaland inaad ugu sii shaqeyn doontid baan rajaynaynaa waxaan ku leenahay ilaaha kula garab garo xilkaadan cusub oo lagu wareejiyay markastana waxaan ku leenahay inaan garabkaadan taaganahay adaan hana wasaaradda haweenka shaqaalaheeda waa mahadsantihiin runtii Zainab agaasime Zainab waxay ahayd qof maaragtay kusoo biiray wasaaradda 2017 early 2017 markii la soo shaqaaleysiiyay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dhammaan horteedna waxay uga sii shaqeyn jirtay wasaaradda ka shaqeyn jirtay actually markay noo timid agaasimuhu qaybta xuquuqul insaanka ayaa waxyaabo badan ay ka bedeshay shaqooyin badan ayay qabteen aad iyo aad u mahadsan yihiin waxay ahayd qof maaragtay hal adag oo aad iyo aad waxyaabo badan ku soo kordhiyay wasaaradda insha Allah Allah u fududayaan leeyahay Zainab kulley waxaan wada shaqeynay 2 sano waxaan ku naqaanaa runtii gabar runtii akhlaaq badan shaqadeedana gudata sidii la rabana u gudata waana gabadha kali ee runtii agaasimo ka ah dowlad goboleedka Jubbaland waxaana hormuud u tahay tusaalena u tahay gabdhaha kale ee Soomaaliyeed bay u tahay waana gobaabinaynaa Zainab shaqo culus ay ka soo qabatay wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka maanta meel fiican ay keentay waxaan leenahay Zainab wali ma aanay naga tagin waan ku faraxsanahay systemka ku jirta agaasimo guud wasaarad kale loo wareejiyay haddii dawladuna waa saas anagana wasaaradda arrimaha gudaha maantana wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha nahay waa government system oo nidaam dawli ah marka waxaan leenahay shaqadeeda Ilaahay u fududeeyo waajibaadka shaqo hor yaalla ee wasaaraddaas Ilaahay u fududeeyo intaas baan uga baxay aad iyo aad u mahadsantiin agaasime Zainab waxay noo ahayd saaxiib walaal noo dhow oo aan marar badan kaga maarana aniga iyada hal wasaaradda aan joognay laba agaasime haddii aniga aan maqanahay ayada ay matalaysay waxaan u soo ahaynay labada garbood oo waan dad iskaaba ayaan ahaynay waxaan filayaa wasaaradihii wasaarad ka mid ayay tagtay aan filayana aadna ugu rajooynahay inay wax badan insha Allah ka qaban doonto waxaan rabaa mar labaad inaan u mahad celiyo asxaabteena ayagana waqtigooda soo horay waxaan aad iyo aad u salaamayaa dhammaan shaqaalahayga sharafta leen muddada 2 sano soo wada shaqeynay oo ugu horeysay wasiir Qamar waxaan leeyahay aad iyo aad baan idin bogaadinayaa sida fiican wasaaraduna intaas oo dhan jeceshay maan ogeyn oo qiimahaas ka taaganahay insha Allah takalantigeena waxaan rajaynayaa saas leeg dad fiican inaan la kulmi doono marka aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa dhamaantiin insha Allah si fiican oo wada shaqeyn doonaa